السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلان أنا عادي هن لو جنا هاللاي أجندون كلا دوان أو حالات ذلك قصية أيها كذا عجودة هذلك إنجليزك وعهل كان إذا كل وذاقية معلومات كه ينقل كم إذا قرأ كاس ويسوق جاري صور بعض المقال كسي قد بيه لا جارية شر جارية ولا سي وذاق أصحابتنا iyada oo dalka ku jiro xaalado kala duwan oo dhinaca siyaasadda ah gaar ahaan arrimaha doorashada isla markaana waayihii dambe aan aad u tabinaynay arrimahaasi doorashada ku saabsan wadankana meel wanaagsan uu marayo haddana waxaa qaybtan idinkugu soo gudbinayaa in siyaasiyiin qaar ay ku kulmeen gudaha dalka Ingiriiska kuwaas oo xaq u leh inay ka hadlaan arrimaha dalka waxayna kulankooda oo aan loo kala kicin ay kaga hadleen qodobo kala duwan oo dalka quseeya waxayna kow diiradda saareen arrimo dayax gacmeed oo lagu wado in laga hirgeliyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo ay dowladda federaalka Soomaaliya kaga digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta iyada oo shacabka halkaasi ku dhaqan diyaar aysan u ahayn in dayax gacmeed halkaasi laga hirgeliyo balse dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in arrintan wax laga qabto raggan siyaasiyiinta ah oo kuna kulmay dalka Ingiriiska oo dhinaca kala duwan leh rugcadayaal ay ku jiraan qaarkoodna dalka mudan tahay in loo dhiibo maamulkiisa waxaan laga weydiiyo ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in tala ahaan ay u jeedinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu hoos u eego qoraalkooda iyo kulankooda iyo bayaankooda iyo natiijada waxyaabihii isla garteen taas oo ah baaq dhinacyo kala duwan ka kooban oo dalka quseeya gaar ahaan arrimaha dayax gacmeedka iyaga oo madaxweynaha ka dalbanaya in dad wata dana gaar ah uusan arrintooda qaadan isla markaana uu ka hortago dadkan mashruuca wata waxaa la sheegay in ay dana gaar ah oo ay dhaqaale ugu horeyso ku soo qaateen dayax gacmeedkan iyo mashruuciisa laakiin dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi karaan shacabka deegaanadooda laga hirgelinayo iyada oo aan wax laga weydiinin odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta hadda ku kulmay dalka Ingiriiska ee u danqanaya shacabkooda haddaba baaqan waxay ku sheegeen inay ka rajeynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda in uu si degan u eegi doono isla markaana uu wax ka qaban doono arrinta ay u soo gudbiyeen haddaba madaxweynaha Soomaaliya waxaan rajeynaynaa in baaqa ragga siyaasiyiinta ah odayaasha ah waxgaradka ah ee Ingiriiska UK ku kulmay oo aan idin soo gudbinayay macluumaadkooda iyo qoraalkan ay soo saareen oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray oo aan wada aqoon karin laakiin aad u jeedaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu baaqooda dhagta u dhigi doono oo uu wax ka qaban doono. Salaamu calaykum.